وعدناس بوتان كسر دوادا مقال كان كوبان وأن أجهد ليه قيمها أي لا هاي أقونتا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسبحكو يري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مسميهين دتك وحقرنية إيو دتك وحقرنين سيدا عد قف والبو أجيهاي وحا قيمة بدن مر والبا قفك أقونت له أياك قيمة بدن قفك أقونت لهين نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركو كهد لي أما إلهي وحو ويديستي وقل رب زدني علما أيو يري oo ilaahu ii siyaadi aqoonta qiimaha ay leedahay waa midda ay ku kala sareeyaan xataa xayawaanka oo marka la fiiriyo ayga waan ognahay inuu yahay xayawaanka loo towbaro in uu noqdo mid u shaqeeya ama ilaaliya ama u khidmeeya qofka waxaan ognahay ayga wuxuu ka wanaagsan yahay ayga wax yaqaan loo adeegsado inuu wax waardiyeeyo ama uu qofka ugaar ku soo qabsado wuxuu ka wanaagsan yahay kaan aqoonta lahayn marka aqoontu heer aad u sareysa ay diinteena gaarsiisay qofka aqoonta lehna waa qofka mar walba ka sareynaya qofka aan aqoonta lahayn xadiisyada nabiga calayhi salaam uu soo wariyay ama asxaabtu ay ka soo wariyeen fadlul cilmi yani aqoonta ay leedahay ama cilmiga aqoonta ay leeyihiin ka hadlaya waxaa lagu waajibiyay in ama طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة in uu qofka aqoonta raadiyo waa mid waajib ku ah qofka muslimka ah lab iyo dhadig labadaba marka waxaa loo baahan yahay ka bulsho ahaan Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay mar walba in ay qiimeeyaan qofka aqoonta leh ay qiimeeyaan sidoo kale uu qofku raadiyo mar walba aqoonta waxaana loo baahan yahay hantidu badanaa ma gaarto aqoonta waxaa dhici karta tusaale haddaan soo qaadano qofka haddii uu hanti maanta leeyahay oo hantidiisa ay dab qabsato waxba uga harimaya laakiin qofka haddii uu aqoon leeyahay aqoontiisa meel walbuu la mari karaa haddii uu xataa ka haajiro meel ama uu ka qaxo dhul oo uu dhul kale aado way la socotaa aqoontiisu meeshuu tagana wuu ku gaaraya waxaa jiray qiso kooban oo ku saabsanayd dadkii hore ee wanaagsanaa mid ka mid ah ayaa waxaa dhacday asagoo safraya ama safar aadaya ayaa waxaa dhacay in jidka ay tuuga u gashay tuugadii jidka u gashay ayaa waxay ka qaadatay hantidii uu watay oo ahayd buug uu soo qoray marka ninkaas wuxuu ahaa nin aqoonyahankaas uu soo qortay ama waagii hore qofku inuu wax qoro uu wax diiwaan geliyo aqoonta uu raadinayo muddo fara badan bay ku qaadan jirtay marka tuugadiiba waxay ka qaadatay wixii uu lahaa dhammaantood bay ka qaadatay waxay gaarsiisay in uu wax walba uu u baahan yahay aqoon ku aadan inuu xafido oo uusan ku kaaftoomin kaliya waad haysataa buugku haddii uu wax walba ay ku yaalla maanta uu meel ku yaallo dee waa buug oo adiga buuggii kuguma seef garaysana laakiin haddii aad aqoontii taqaanid ama aad xifdisay meel walba aad la mari kartaa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدب ومحسنتي.